بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن dhageystayaal qodobada wararka shabeelle caawa idin hayso waxa kamida madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe wufuud horle oo uu kamid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo gaaray magaalada Garowe qabanqaabada caleema saarka madaxweynaha Puntland oo socota iyo diyaar garowgii ugu dambeeyay ee munaasabadaasi oo ka socda Garowe dawladda Soomaaliya oo sheegtay in ay sii kordheen qasaarihii ka dhashay weerar dhawaan al-shabaab lagula beegsaday Jubbada Dhexe al-shabaab oo sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Burundi ee qaybta ka amisom ku dileen gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada ammaanka oo baaritaano dheeraad ah ka bilaabay wadooyinka Muqdisho Mareykanka oo ka laabtay go'aan uu ku hakiyay shaacinta qasaaraha duqeymihiisa Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo la kulmay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Galmudug oo la geeyay deegaano hoostaga degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud midowga Afrika oo xoojinaya howlgallada booliskooda ku sugan Soomaaliya iyo ololaha isxilqaan ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Farmaajo oo ka hirgelay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wararka dibadda ee shabeelle caawa idin hayso waxaa kamida qaramada midoobay oo guddi baaritaan ah u magacaawday kiiska dilka wariye Jamaal Khashoggi iyo Mareykanka oo shaqaalihiisa kala soo baxaya dalka Venezuela waa habeenimo Sabti ah taariikhduna ku beegan tahay 26 bisha January sanadka 2019 warkaas oo dhan waxaa la diyaaray wariyaheena Cabdullaahi Cismaan Cadaani mahadsanid محمد أحمد جمعالي بسم الله الرحمن الرحيم هبي وناكسن dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland dhinaca kale wafdi horle oo kamid yahay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa lagu soo dhaweeyay magaaladaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna Maxamuud Cabdinaasir Soofeysane markii uu ka degtay gegida diyaaradaha General Maxamed Abshir Muuse ee magaalada Garowe madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ka qaatay salaan sharaf cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland iyadoo uu dhinac taagan yahay madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani socdaalka madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa salka ku haya ka qaybgalka xafladda caleema saarka madaxweynaha cusub ee maamulkaasi qaybaha kala duwan ee shacabka maamulka Puntland iyo siyaasiyiin ayaa madaxweynaha u soo dhaweeyay si dareen leh iyadoo markii dambe loo gudbiyay goobta uu ka degi rabo magaalada inta uu ku sugan yahay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu horeyn muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay isaga iyo shacabkiisa imaatinka madaxweynaha dawladda Soomaaliya waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa wafdiga iyo madaxweynahaba sida wanaagsan oo sharafta iyo karaamada leh inoogu soo safreen inay nagala qayb galaan xafladda caleema saarka natiijadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Puntland 8 bisha waxaan ku faraxsanahay inay shacabka Puntland iyo dawladduba ay maanta ay soo dhaweysay madaxweynaha iyo wafdiga balaaran la socday iyo safiirada Soomaaliya u fadhiya ee magaalada Muqdisho caalamka waxay noo tahay sharaf gaar ah madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa dhankiisa ka mahadceliyay sida loogu soo dhaweeyay Garowe waxa uuna shaaciyay in muddo 2 cisho ah uu ku sugnaan doono magaaladaasi marka laga soo tago xafladda caleema saarkana uu ka qayb gali doono kulamo uu la yeelanayo qaybaha kala duwan ee madaxda maamulkaasi iyo shacabka waxaan runtii aad iyo aad uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo waalidnimada leh adiga iyo shacabka Puntland sida wanaagsan loo soo dhaweysay aniga wafdigeeda iyo martisharafta kale oo la socota runtii waa filaynay soo dhaweyntan wanaagsan oo waalidnimada leh waa filaynay xaqiiqatan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan joogno adiga laba casho hadii Ilaahay yiraahdo waan idin wadaagno caleema saarka iyo halka dabaaldega oo aan la hadalno shacabka Puntland khaasatan Garowe hadii ay yiraahdo waana ku hambalyeynaa doorashadii sida wanaagsan u dhacday oo transparency ahayd oo adduunka oo dhan laga fiirsanayay murashaxiinta kale iyaga naftooda waxaan leeyahay
hambalyo yaan leeyahay sida wanaagsan runtii uga qayb galeen doorashada. dhinaca kale madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa saaka gaaray magaaladaasi waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo madax kale oo ka tirsan maamulkiisa. madaxda ugu sareysa qaranka kuwa maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Garowe waxa ayna ka mid yihiin xubnahaasi marti sharafta lagu casuumay xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Puntland. al-shabaab ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Burundi ee qaybta ka ah AMISOM ay ku dileen gobolka Shabeellaha Dhexe. dagaalyahanada xarakada al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax lagu dilay askar ka tirsanaa ciidamada Burundi oo ka dhacay deegaanka Buurane oo hoostaga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. warar al-shabaab ay ku baahiyeen bogagooda internetka ayaa waxay ku sheegeen in qaraxaasi ay ku dileen ilaa 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee ka socda gudaha Soomaaliya. qaraxa ayaa ka dhacay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ciidamadaasi sida ay baahiyeen al-shabaab. dhanka kale ma jiro wax war ah oo ka soo baxay taliska AMISOM gaar ahaan ciidamada Burundi oo ku aadan qaraxaasi. al-shabaab ayaa inta badan qaraxyo iyo weerar jidgal ah ku qaada ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay sii kordheen khasaarihii ka dhashay weerar dhawaan al-shabaab lagula beegsaday Jubbada Dhexe. dhinaca kale Mareykanka ayaa ka laabtay go'aan uu ku hakiyay shaacinta khasaaraha duqeymahiisa Soomaaliya. xasan kaafi xuseen axmed ayaa ka waramaya. ciidamada taliska Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in ay sii wadayaan baahinta ku aadan wararkooda duqeymaha cirka ah oo ay ka fuliyaan Soomaaliya kadib markii dhawaantani ay ku dhawaaqeen inay hakiyeen baahinta weeraradaasi. waxaan sii wadi doonaa baahinta natiijooyinka ka dhasha duqeymaheena inkastoo aan dib habeyn ku sameynay fariimaheena sidoo kalena waxaan xoojin doonaa ka warbixinta tirada dagaalyahanada al-shabaab ee la dilo. sidoo kale waxaan faahfaahin dheeraada ka bixin doonaa duqeymahaasi. sidaasi waxaa VOA u sheegay John McKay oo ah afhayeen u hadlay taliska Africom ee Mareykanka. afhayeenka Mareykanka ayaa intaasi raaciyay in qorshahani ay uga leeyihiin sidii saaxiibadooda ay wada shaqaynta ka dhaxayso ay uga faa'iideysan lahaayeen warbixinadooda isla markaana ay ugu dabaqi lahaayeen howlgalkooda ku aadan dhanka amniga. diyaaradaha Mareykanka ayaa duqeymihii ugu dhimashada badnay bishani sheegay inay ku dileen 52 dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab. duqeymahaasi oo ay ka fuliyeen magaalada Jilib Aduleedkeeda ee gobolka Jubbada Dhexe. tallaabadani ayaa ku soo aadaysa xilli dawladda Mareykanku ay dhawaantani sheegtay inay ciidamo dheeraad u soo dirayso Soomaaliya kuwaasi oo gaaraya 130 askari oo dawladda Soomaaliya ka caawin doona dagaalka ay kula jirto al-shabaab. dhanka kale Cabdinuur Ibraahim oo afhayeen u hadlay dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in khasaaraha al-shabaab lagu gaarsiiyay duqeyntii Jilib ay korotay isla markaana haatan ay marayso 70 xubnood oo ka tirsan al-shabaab sidoo hadalka u dhigay. tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu la wareegay hoggaanka dalkaasi waxa uu amray in sare loo qaado duqeymaha iyo weerarada ciidamada Mareykanku ay la beegsanayaan fariisimaha al-shabaab ay ku leeyihiin bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. ciidamada ammaanka ayaa baaritaano dheeraad ah ka bilaabay wadooyinka magaalada Muqdisho. jaamac Kadiye ayaa warkan faahfaahinaya. xilli maalmihii dambe ee laamaha ammaanka ay ciidamo fara badan soo dhoobeen baraha kontarool iyo isgoosyada magaalada Muqdisho ayaa waxaa isa soo tarayay saxmadda iyo mashquulka ka jira wadooyinkaasi. mar aan u kuurgalay dhibaatooyinka mashquulka iyo saxmaddaasi oo ay sababeen baaritaanada ciidamada ammaanka ay wadaan ayaan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka bajaajka. waxa ugu badan iska taleex lambar 4 Zoobe 3 bala ugu daran iyo iska Banaadir
sidoo kale isgoyska bakaaraha markaan bakaara aadno bakaaraha ilaa howlwadaag wadadaas ayna jaamka zaid waaye laakiin wadadan ugu daran wadadan ugu shaqo badan magaalada jaamka baabuurta mootooyinka iyo baabuurta iyo caasiyada wadadan ugu badan dadka ayadana jaamka zaid waaye walaabo baaritaanka ayada jiro aniga saas leeyahay ra'yiga baaritaan uu jiraa waana la sameeynaya laakiin qaabka loo barayo ayaa qaldan aniga waxa la sameeynayaa meel isgoysa oo baabuurta kala wareegay lahayd agteeda checkpoint la dhigaya baabuurta meel kala wareegtay meel marka waxa dhacaysa baabuurta in wadadii xirtay laakiin kale mootooyinka caasiga mar lahayn inay xiraan baabuurta yarkayd oo acadkayd oo dadka khaaska wateen baabuurta raaxada ah wadadaas xirayso marka aan wax dhigi lahaa checkpointyada laga fogeeyo isgoysyada si isgoysyada la isku dhaafo oo dadkan ay meel maraan u helaan dadka dhigi lahaa walaal dawladdu waxa u baqay walaalow inay kala soocdo baabuurta rayidka dadka rayidka shacabka wado oo dadka u shaqeynayo sida mootada iyo caasiga iyo baabuurta raaxada la baarayo baabuurta raaxada la baarayo in checkpointyada khaas loo sameeyo wadooyin khaas loo sameeyo annagana la fasaxo aan shaqeysanayn dad shacabka u shaqeynay walow ay sheegeen laamaha ammaanka maalmihii dambe in ay baaritaanada ay wadeen ay kaga gol leeyihiin sugidda ammaanka muqdisho iyo sidii ay u adkeyn lahaayeen balse dadka qaar ayaa qaba in ammaanka la sugo ay wanaagsan tahay haddana loona baahan yahay in wax laga bedelo sida ay wax u socdaan maadaama ay saameyn ku yeelatay saxmadaasi qaybaha kala duwan ee bulshada ee isticmaala wadooyinkaasi sida ardayda ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee gaadiidka dadweynaha ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa la kulmay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna Ismaaciil Daacad ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la kulmay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar iyo gudoomiyaha xisbiga talada haya ee gobolka Axmed Shide sida laga soo xigtay war ka soo baxay xafiiska wasiirka koowaad ee xukuumadda Addis Ababa ayaa waxa lagu sheegay wada hadal ay yeesheen mas'uuliyiinta waxay salka ku hayaan ayuu yiri horumarka iyo amniga deegaanka warbaahinta ku hadasha afka dawladda ee Ivana ayaa warinaysa in wada xaajoodyada madaxda ay ku soo idlaadeen iyada oo Abiy Ahmed bidhaamiyay muhiimadda ay leedahay horumarinta shacabka ku dhaqan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kulankan ay yeesheen dhinacyadan ayaa ku soo aadaya iyada oo maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya kulankan ay yeesheen dhinacyadan ayaa waxa ku soo aadaya iyada oo maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegayay inuu jiro khilaaf u dhaxeeya madaxda dawlad deegaanka iyo xukuumadda federaalka jabhadda xureynta Soomaali galbeed ONLF oo xiisada siyaasadeed ka hadashay ayaa ku tartansiisay dawladda inay ixtiraamto rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyada oo mas'uuliyiinta ku boorisay inay xaliyaan ismariwaagooda ugu dambeyn lama huba haddii ay isqabqabsiga u dhaxeeya mas'uuliyiinta ka tirsanaa maamulkii Cabdi Ilay ee xilka ka haya dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo kuwa isbedelka doonka ah ee kuraasta yimid dhowaan uu kulankaas soo afjari doono ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka maamulka Galmudug ayaa la geeyay deegaano hoostaga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha Shabeelle Cali Gaab taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka Galmudug oo ay weelinayaan gudoomiyaha degmada Cadaado iyo saraakiil ka tirsan booliiska dowlad goboleedka Galmudug ayaa kormeeray deegaanka Duculey ee gobolka Galgaduud halkaas oo laga sameeyay saldhig ay ciidamada booliiska dowlad goboleedka Galmudug ay degayaan si ay u xaqiijiyaan amniga deegaanada Duculey ee gobolka Galgaduud dowlad goboleedka Galmudug saraakiishan oo hogaaminaya taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka Galmudug General Dhagabadan ayaa waxay kormeer ku sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay deegaanka Duculey iyo sidoo kale saldhigyada loogu talagalay in ciidanka booliiska ay degaan taliyaha ciidanka booliiska dowlad goboleedka Galmudug General Dhagabadan ayaa sheegay in ciidamadan loogu talagalay inay xaqiijiyaan amniga deegaanka Duculey oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana shacabka ugu baaqeen in la shaqeeyaan ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Galmudug si ay wax uga qabtaan falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca deegaanka Duculey ee gobolka Galgaduud taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka Galmudug General Dhagabadan ayaa waxa uu sheegay in dowlad goboleedka Galmudug ay ka go'an tahay in laba jibaaraan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka ee ka sameynayaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug si ay uga hortagaan falalka amni darro gudoomiyaha degmada Cadaado Masarto Tuule ayaa sheegay in maamulka degmada Cadaado uu garab taagan yahay ciidamada booliiska dowlad goboleedka Galmudug isla markaasna ay ka gacan sii doonaan sugitaanka amniga deegaanadaasi
si kastaba ha ahaatee ciidamadani la geeyey deegaanka ducul iyo gobolka galgaduud ee ka tirsan booliska dowlad goboleedka galmudug ayaa hore looga soo aruuriyay deegaankaas iyadoo tababar la soo siiyey waxaana iminka deegaanka dib loogu celiyay si ay u sugaan amnigooda. cali xasan barqadle cali gaab warbaahinta shabeelle ee galmudug. midowda afrika ayaa sheegay inuu xoojinayo howlgallada booliskoodu ay ka wadaan gudaha Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo aadan daahir cabdi diyeshe. ururka midowda afrika ayaa wada qorshe sare loogu qaadayo howlgallada booliska AMISOM ay ka wadaan qaybo ka mid ah Soomaaliya. sarkaal ka tirsan booliska dalka Uganda iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa dhawaan magaalada Muqdisho kula kulmay wakiilka midowda afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka AMISOM Francesco Madera. waxaan labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa howlgallada booliska AMISOM ay ka wadaan Soomaaliya. Grace Turyemangawe oo sarkaal ka tirsan booliska dalka Uganda ayaa xusay in ballaarinta ciidamada booliska AMISOM ay gogol xaar u tahay tayeynta ciidamada booliska Soomaaliya. midowda afrika ayaa kordhinaya tirada booliska ka jooga Soomaaliya taasoo qayb ka ah qaraar sanadkii 2017 ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. dalka Ghana ayaa dhawaan Soomaaliya u soo diray 120 askari oo booliis ah kuwaas oo ku biiraya howlgalka AMISOM. sidoo kale dawladda Djibouti ayaa ballan qaaday in ciidamo booliis ay u soo dirayso Soomaaliya si ay uga qayb qaataan howlgallada nabadaynta midowda afrika ay ka wadaan gudaha Soomaaliya. ololaha isxilqaan ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hirgalay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. cabdiqani bashiir xuseen ayaa si aan baqaadaya. qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa u istaagay ololaha isxilqaan ee uu kal hore ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhalinyaradan ayaa olole nadiifin ah ka bilaabay xaafadaha Beledweyne si ay u soo celiyaan bilicdii ay lahayd magaaladaasi. cabdi muumin cilmi oo ah gudoomiyaha urur ay ku midoobeen dhalinyaradaasi ayaa Shabeelle faahfaahin ka siiyay sida ololahaasi uu ugu hirgalay gobolka Hiiraan. markii ugu horeyso raadiyo Shabeelle shaqadaasina waxaa laga qabtay xaafadda Kooshin ekis suuqii hore ekis maaragtay iskuulkii hore ee Mujama xerada daraawiishta 12 kaari oo qashin ayaa halkaasi laga qaaday. halkaasi waxay u dhaweeday xarunta weyn ee maaragtay hilibka lagu iibiyo iyo isbitaalkii guud ee magaalada Beledweyne. 17 isla bisha gudaheeda waxaan shaqo ololaha nadaafadda ka bilownay oo baaxad weyn leh xaafadda Howlwadaag buundaliqliqati inta u dhaxayso Sheekh Xasan Barkale. marka ugu horeyso waxaan rabnaa inaan maaragtay aan hadda shaqada ugu soo horeyso aan qaban rabnaa dawladda maadaama laba meelood aan qashin aan ka qaadnay oo maaragtay aan nadiifinay. dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka sidoo kalena lagu nadiifinayo xarumaha muhiimka u ah bulshada si loo soo celiyo quruxdii iyo habmaamuuskii ay lahaan jirtay Soomaaliya. halka warkaasi aad kala socotaan waa Shabeelle Muqdisho Soomaaliya. dawladda Mareykanka ayaa shaacisay in qaar ka mid ah shaqaalaheeda ay kala baxday dalka Venezuela kadib markii madaxweyne Nicolas Maduro uu qabtay muddo 72 saacadood inay uga baxaan dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in diblomaasiyiinta aysan ka soo bixi doonin Venezuela isla markaana aysan xili doonin safaaradeeda dalkaasi. madaxweyne Maduro ayaa Arbacadii sheegay in xiriirka diblomaasi uu jaray Mareykanka kadib markii Trump uu hogaamiyaha mucaaradka Venezuela u aqoonsaday inuu yahay hogaamiyaha ku meel gaarka ee dalkaasi. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa waxa uu sheegay in Maduro uusan hadda lahayn awood uu ku sii hogaamin karo dalkiisa sidaa daraaddeedna loo baahan yahay inuu xilka isaga dego. wasiirka ayaa sheegay in shaqaalaha aan muhiimka ahayn uu soo saarayo sababo amni isla markaana muwaadiniinta kale ee Mareykanka ay si xoogan uga fakiri doonaan in dalkaasi ay ka tagaan. muranka caalamiga ah ee ka taagan hogaanka Venezuela ayaa sii qoto dheeraaday Khamiistii kadib markii Shiinaha iyo Ruushka ay taageero u muujiyeen dawladda Maduro. dalal badan oo Ruushku ka mid yahay ayaa taageero u muujiyay madaxweyne Maduro oo la sheegay inuu weli haysto kalsoonida ciidamada militariga dalkaasi. warkii habeenimo aad kala socoteen idaacadda Shabeelle Muqdisho dhageystayaal waa naga inta ciduu sheegay warkan waxay dib uga heli kartaa barta aan ku leenahay internetka radioshabelle.com.